doorashada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka bilaabatay 4 maamul goboleed iyadoo Hirshabelle ay tahay maamul goboleedka qura ee ilaa hadda bilaabin doorashada aqalka sare. Sidoo kale, xubnaha reer waqooyiga ee aqalka sare ayaan weli la dooran iyadoo Puntland ay tahay maamul goboleedka qura ee dhammaan doortay xubnaha ku matali doona aqalka sare ee baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya. Doorasho mise xulasho ceeb iyo fadeexad weyn ayaa hareeyay ilaa hadda 4 maamul goboleed ee qabtay doorashooyinka aqalka sare. Hoggaanka maamul goboleedyada ayaa u muuqda in iyaga rabitaankooda ama qof siyaasi oo ay wax la rabaan inay doorashada ku hagayaan, taas oo si weyn uga fog waxyaabihii ay dhinacyadu u taagnaayeen ee farmaajo lagula diriray oo ahayd qabashada doorasho xor ah, xalaal ah, dhexda taalla si siman loogu tartamo oo natiijadeeda la wada aqbalo. mucaaradka Soomaaliya ayaa maanta ku shiraya caasimadda si ay uga tashadaan dildilaaca ka muuqda doorashada. doonista mucaaradku waxay u muuqdaan kuwa xilli dambe baraarugay. waxaa ka muuqata xilliga ay soo naaxeen kuwa rajo ka qabay madaxda maamulada qaar oo rajadoodii waayey. waxay doonayaan inay hadda kor u hadlaan oo ay duraan sida uu ku socdo mashruuca doorashada. mar walba mucaaradku gacanta lama geli karaan shaqada doorashada oo sharciyadu ma haystaan, waxaana qayldhaantooda cusub laga yaabaa inay iyaga u abuurto cadaawad cusub. qayladhaan cusub oo ka timaada dhanka mucaaradka uma badna inay wax weyn ka beddeli karto doorashada ka bilaabatay 4 maamul goboleed. in lagu laabto kuraastii la doortay ee lacagaha badan lagu kala iibsaday sidaan xogta ku hayno waa mid aad u adag. sidaa darteed mucaaradku waxay qaadayaan tallaabo ay kala kulmi karaan 3 caqabadood oo waaweyn. 1. colaad maamul goboleedyada ah. mucaaradka hadda cadaawad weyn kalama dhaxaysa maamul goboleedyada, laakiin marka ay ka hor yimaadaan shaqada ay wadaan waxaa halkaasi ka dilaaci doona isbahaysi maamul goboleedyada u gaar ah oo la dirira mucaaradka. farmaajo arrintan waa u dan. 2. doorasho diidnimo. waxaa jirta aragti fudud oo la iibin doono oo ah inaanay mucaaradku doorasho rabin oo ay badankood soo waayeen dhaqaale ay doorasho ku galaan. si fudud waxaa fikraddan u dhex mari kartaa shacabka iyo beesha caalamka. kani waa ciwaan weyn oo caqabad ku noqon kara mucaaradka. 3. xildhibaanada soo baxaya mucaaradka. ilaa hadda 26 xubnood oo aqalka sare ah ayaa la doortay. musharaxiinta mucaaradka qaar ayaa xubno u soo bixeen, qaarna waxay arki karaan xubno ay la heshiin karaan. laakiin hadday mucaarad ku diidaan sharciyadda xubnaha la doortay ama ay shaki geliyaan, xubnahaas iyo mucaaradku waa kala tageen, waxayna u badan tahay inay farmaajo u galaan. kala qaybsanaanta mucaaradka. sidaan xogta ku hayno, mucaaradku iskuma raacsana in toos loogu hor yimaado shaqada socota. ragga qaar ayaa ku qanacsan siday hadda wax u socdaan oo ay xildhibaanna u soo baxeen, laakiin waa jiri karaan fikrado ay ka siman yihiin oo aan ahayn in toos loogu hor yimaado mashruuca doorashada. haddaba maxaa la gudboon mucaaradka oo ay isku waafaqi karaan maanta? in sida ay wax ku socdaan ay qaldan tahay qof walba oo faham leh waa u jeedaa, laakiin mucaaradka waxaa laga rabaa inay mashruucii doorashada saxaan, gaar ahaan habraacyada iyagoo aan cadaawad ka samaysan maamul goboleedyada, xildhibaanada soo baxay iyo daneeyayaasha doorashada oo aan u arag caqabad. ilaa hadda xildhibaanada soo baxay waa 8% marka la eego tirada labada aqal ee baarlamaanka. si ay mucaaradku u saxaan una badbaadiyaan inta dhiman oo ah 92%, waa inay ku diriraan in habraacyada doorashada aqalka hoose la bedelo oo laga dhigo mid xuquuq siman siinaya dhammaan tartamayaasha. arrintooda iyagoo aan cambaarayn ka dhigin oo aan cadaawad ka samaysan dhinacyada ayay u beddeli karaan kulamo, guddiyo iyo inay la fadhiistaan madaxda maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha si loogu laabto habraacyada walaaca badan wata ee lagu maamuli doono doorashada dhiman. maxay kula taadiga?